dhisto maamul goboleedyo cid walba gurigeeda ee maamul wanaagsan u samayso waxaan qeexayaa oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo dawladda u sheegaya Jubbaland waxay samaysanaysaa maamul oo dadka Soomaaliyeed oo degan Jubbaland maamulkaas ay dhisanayaan waa soo dhaweynaa caalamka waa ku casuunaynaa dawladda waa ku casuunaynaa ummadda Soomaaliyeed intii wanaag rabtana waa ku martiqaadaynaa waxaana hagahaya dadka u dhashay Jubbaland oo hadda gacanta ku haya kaga jeednaa ummadda soo sheegayna in lagu daydo qof kasta iyo cid kasta iyo gobol kasta oo wanaag keena in lagu daydo waxaan doonaynaa had anoo ku hadlayo afka ummadda Soomaaliyeed afka dhaqanka Soomaaliyeed afka inta wanaaga rabta iyo beesha aan ismka u ahay oo suudaankeeda aan afkooda ku hadlayo waxaan rabnaa in wanaag loo gudbo si kalsooni oo wada ummaduna uga baxdo hadheeda iyo qatarta iyo dhibaatada iyo balada haysata Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho wararka ka imanaya deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo waramaya in 9 ruux oo isku qoys ah ay ku sumoobeen biyo ay isticmaaleen warka ayaa intaasi ku daraya in hooyadii qoyskaasi ay suntii u geeriyootay iyadoo dadka sumoomay loola cararay magaalada Kismaayo warbixintan Kismaayo waxa ka soo diray wariye Khadar Maxamuud Xareed waxaa maanta isbitaalka qaybta caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo la soo gaarsiiyay dad ku soo sumoobay biyo ay cabeen kuwaas oo laga keenay nawaaxiga deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose waxaana tirada dadkan soo sumoobay oo gaaraysa ilaa 9 qof ay ahaayeen dad isku qoys ah iyadoo suntaasi ay u geeriyootay hooyadii reerka sumoobay halka aabihii reerkana uu wali ku dhibaataysan yahay nawaaxiga deegaanka Kudhaa ee arintu ka dhacday 7 kamid ah dadkii ku soo sumoobay biyihii ay isticmaalayeen ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka qaybta caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo halkaas oo lagu dabiibayo mid kamid ah ehelada dadkan soo sumoobay oo aan kula kulmay xarunta dadkan lagu daweynayo ee isbitaalka qaybta caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo ayaa waxa uu ka waramayaa qaabkii ay dadkan isku qoyska ah u soo sumoobeen dadkan waxa weeye habeenkii 9 saaco habeen ayada dadkan lagu dhacay wax hadda loo eersanayaan horta Ilaahay baa naga ogsoon laakiin waxaan maleynaynaa habeenkii cashadii la cunay wax ugu dambeeyay dadkan ma jirin maxaa ku dhacay hadii suban iyo waxa ku dhacay dadka matag tiro badan dadku waa dawaqmeen qaar waa dhinteen oo habartii ilmaha dhashay waa dhimatay odaygii meesha loogu soo tagay wuxuu yiraahday waxaan kama dhaxtay karin marka intii kale oo jilicsaneedna waa la soo qaaday isbitaalkan keenay shubanka maxaa keenay shubanka waxa keenay kulli habeenkaas dadkan hal qoysay ahaayeen cashaday karsadeen looguma dambeeyay Maxamuud Cabdiraxmaan Sahal Sambuul agaasimaha qaybta caafimaadka ee isbitaalka jaamacadda Kismaayo oo ka hadlay xaaladda dadkan soo sumoobay ee la soo gaarsiiyay isbitaalka ayaa wuxuu tilmaamay in dadaal dheeraad ah kadib ay haatan soo hagaagayso xaaladda dadkan soo sumoobay ee la soo gaarsiiyay isbitaalka saaka aroortii waxa soo gaaray dad ku soo sumoobay deegaanka Kudhaa oo ka tirsan degmada oo hoos yimaada gobolkan Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Kismaayo dadkaasi waxaan hal qoys oo ka kooban 9 qof 6 dumar ah iyo 3 rag ah oo aabihii hooyadii ay kamid yihiin intii ayna soo gaarin isbitaalka deegaanka waxa ku geeriyooday hooyadii oo la oran jiray Jamiilo Cabdullaahi Cilmi Allahu naxariiste dadkaas waxay ku sumoobeen biyo ay caadi u cabi jireen markii hore oo jeerigaamada ugu jiray 16 bishan 8 fiidnimo ayay biyaha cabeen isticmaaleen 10 ama 4 gelinka dambe ee habeenimana suntii baa qabatay waxa laga soo qaaday tuulo ku dhow deegaanka Kudhaa doon baa lagu soo qaaday isbitaalkana waxay soo gaareen maanta oo bishu tahay 18 kii bisha 2013 subaxnimadkii isbitaalku gacantu ku qabtay 8 ruux ee kale oo isku wada qoysa aabihiina waxa laga yimid deegaankii laftiisa oo isaga lama soo qaadin 7 ruux ee kale ayaa timid dadkii wixii tabarta isbitaalka ahaa isbitaalka jaamacadda Kismaayo waa loo sameeyay
gargaar degdeg ah loo sameeyey dawooyin baa la siiyey solutionno iyo faleebooyin baa la siiyey xaaladoodan hadda aad bay u fiican tahay ugu dambeyntii dadkan soo sumoobay ee saaka la soo gaarsiiyey cisbitaalka qaybta caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo ayaa waxaa ku jirta gabar yar oo iyadu aanan cabin biyaha sumaysan balse biyaha sumaysan ay si dadban u saameeyeen kadib markii ay nuugtay naaskii hooyadeed oo ka mid ahayd dadkii ay dhibaatada ka soo gaadhay biyaha sumaysan ee ay isticmaaleen oo uu ka mid yahay ilmo 8 bilood jira oo gabadhaas si direct ah umayna cabin sunta laakiin si hooyadeed ayay naasaha ka nuugtay oo indirect bay yaan u filaynaa inay suspected tahay inay sunaysan tahay laakiin hadda wax calaamado sun oo kama muuqdaan Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo Ra'iisul Wasaaraha dalkan Kenya Raila Odinga oo ka mid ah murashaxiinta ugu cadcad ee u tartamaysa jagada ugu sareysa ee dalkan Kenya ee madaxtinimada ayaa maanta booqday xaafadda Islii ee ay ku badan tahay Soomaalidu ee magaalada Nairobi. Ra'iisul Wasaare Raila Odinga ayaa la hadlay dadka Soomaaliyeed isagoo sheegay inuu Soomaalida wax badan u qaban doono haddii uu ku guuleysto loolanka ugu jiro madaxtinimada dalkan Kenya. Warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Faysal Caseer. booqashadan uu ku yimid ra'iisul wasaare Raila Odinga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii ayaa ahayd mid uu ku doonayay inuu taageero xooggan uu ka helo Soomaalida ku nool xaafadaas. boqolaal dadweyne ayaa iskugu soo baxay bartamaha suuqa weyn ee Islii kuwaasi oo taageersanaa xisbiga CORD. ra'iisul wasaaraha Kenya ahna hogaamiyaha xisbiga CORD oo ka mid ah xisbiyada u taagan hanashada xilka madaxtinimada Kenya ayaa waxa uu ballan qaaday dadweynaha Soomaalida ku nool xaafadda Islii haddii ay gacan ka siiyaan sidii uu guuleysan lahaa madaxtinimada Kenya inay dawladdiisa ay wax badan ka qaban doonto dhisidda wadooyinka xaafadda horumarinta ganacsiga xaafadda iyo sugidda ammaanka xaafadda oo ayadan dambe qalqal badan uu ka jiray. Manake wizara ya maji wamemaliza kuchora kila kitu, mambo ya sewage wamechora kila kitu, barabara kila kitu imekwisha, mambo ya stima na kila kitu imekwisha.